kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Baamas Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxa ka mid noqon doona taliye xijaar oo saraakiisha ciidamada siiyay amar la xiriira xiisada farmaajo iyo Rooble taliska xoogga dalka oo ka hadlay weerarkii Balcad ka dhacay kiyaanka oo lagu booriyay inay mas'uuliyad iska saaraan badqabka danka wadooyinka daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ayaa si adag uga hadlay inay saraakiisha ciidamada ay ku milmaan siyaasadda dalka xijaar ayaa sidoo kale ciidamada faray inaysan qayb ka noqon karin arrimaha siyaasadda iyo wax ka baxsan shaqadooda xilli uu jiro khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waa in ciidanka booliska Soomaaliyeed aysan ku milmin siyaasadda oo ay shuqul ku lahayn meesha lagu hayo siyaasadda ee loo igmaday inay u shaqeeyaan amniga qaranka kaliya ayuu yiri taliye xijaar mas'uuliyadeena koowaad waxa weeye inaan ilaalino amniga nafta maalka shacabka Soomaaliyeed inaan u fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee waxa ay xaq u leeyihiin sidoo kale inaan dhowrno odayga waayeelka ah wiilka yar iyo midka bajaajta ku shaqeysanaya ayuu yiri taliye xijaar sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay hortaala shaqo baaxad leh oo ay qayb ka tahay amniga doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan mas'uul ka nahay doorashooyinka amniga waxaan mas'uul ka nahay musharaxiinta ergada wax dooranayso shaqaalaha iyo dadka loo igmaday inay doorashada daadayaan iyo qalabka meesha yaalo ee loo isticmaalayo doorashada wuxuu intaasi ku sii daray in laga maarmaan ay tahay in amniga guud ee dalka laga wada shaqeeyo isla markaana saraakiisha ciidamada xoogga saaraan sidii si nabdoon looga gudbi lahaa xaaladdan taagan waxaan shacabka Soomaaliyeed la socodsiinayaa in ciidamada ay diyaar u yihiin in dareenkooda ay ku shaqeeyaan oo gacan ka siiyaan waqti kasta ay u soo jeedaan oo ay sugaan amnigooda ayuu yiri hadalkan ayaa ku soo aadaya amar shalay ka soo baxay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Odawa Yuusuf Raagi kaasi oo ahaa in ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda si hufan ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ciidamada ayaa la gelay heegan buuxo iyada oo aan loo ogoleen inay raacaan garab ama aragtiyo gaar ah xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo culus oo u dhaceysa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble haatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay dileen ugu yaraan 9 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo saakay weerar gaadma ah ku qaaday qaybo ka mid ah degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay la xiriirtay wakaalada wararka ee Soomaaliyeed ee Sona ayaa xaqiijiyay in madaafiic iyo rasaas ay u adeegsadeen Al-Shabaab ayna ku dhinteen tiro kale taliska ayaa intaasi ku daray inay 10 lama ilowaan ah u dhigeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee la soo qalday kuwaasi oo soo waray degmada Balcad xaaladda magaalada ayaa haatan degan waxaana soconaya howlgallo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku baadi goobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ee degmada Balcad soo weeraray haatana dalka Kenya afhayeenka dowladda dhexe Chris Ogonga ayaa shacabka ugu baaqay inaynan fududeysanin mas'uuliyadda ka saaran xaqiijinta badqabka dhanka wadooyinka oo ku tilmaamay mid guud waxa uu cid kasta oo u adeegsata wadooyinka wadanka u soo jeediyay inay raacdo tilmaamaha iyo shuruudaha waaxda traafikada si loo yareeyo shilalka sare u kaca xiliyadan oo kale Ogonga ayaa rakaabka iyo wadayaasha baabuurta kula taliyay inay safarkooda sii qorsheystaan si looga baaqsado in gawaarida qaabka xawliga ah loo wado sidoo kalena darawaliinta ayuu ugu digay inay darooga ama telefoonka gacanta isticmaalaan iyagoo baabuur kaxeynayo wuxuu carabka ku adkeeyay in darawaliinta looga doonayo inay muujiyaan habdhaqanka ugu wanaagsan ee waafaqsan xeerka waaxda gaadiidka ee dalka daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya war wixii dalka iyo daafaha caalamkan idinkaga hayay warkeena maanta waxa idin soo saaray oo idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najib Bakhaari intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah